بسم الله السلام عليكم وأنا إبراهيم وبري وحنا هلقا idin kula wadaagi doona muuqaal yar oo kooban oo kaga hadlayo saddex arrimood oo lagu heli karo ama sabab u noqon karo qof inuu helo jidka isbedelka ama horumarka. Waxa jira muuqaal hore aan kaga hadalnay isbedelka iyo arrimo la xiriira qaacidada isbedelka iyo isbedelku wuxuu yahay laakiin ka waxuma kaga hadli doonaa waan bal horta isbedelka ugu horeyn jidka lagu helayo waxyaabaha sabab kara saddex arrimood baa sabab kara ta koobaad waxay tahay dhiirigelinta waxa weeyaan qof inuu ku xamaasad geliyo ama aad akhrisato wax xamaasad leh ama aad dhegeysato ama aad daawato wax ku dhiirigeliya ama ku qeyr geliya. Dhiirigelinta waxa laga yaabaa inuu ku tiraahdo waxa waad sameyn kartaa hore u soco dhaqaale ahaanba qofku dhiirigelin karaa taageer ahaanba ku dhiirigelin karaa laakiin hadii jeer dhiirigelinta cimrigeeda aad buu koobay labada qodob ee kale sheegi doonana way ka cimri kaabanta because xamaasadaas iyo qeyradaas muddo yar bay qaadataa hoos boo soo dhacdaa marka dambaysa hadii ay jiraan laakiin deegaan kale iyo arrimaha kale qodobada kale sheegana ay kaabayaan waxa laga yaabaa in dhiirigelinta markaa ku caawiso hadii kale aan kuwaasi jirin dhiirigelinta muddo yarba marka ka soo wareegto dhowr saacadood ama maalin ama laba maalmood wixii lagu dhiirigelinayaan ba xamaasadii ama qeyradii hoos boo soo dhacaysa waxin baad sarkaysaa adigoo sidaadii hore ah laakiin dhiirigelintu waxay qayb ka noqon kartaa sababta qofku jidka isbedelka ku heli karo iyo horumarka qofkaasi marka uu kaga gudbayo ama uu kaga guurayo marxaladii nololeed hore ku noolaa uu ku sameynayo ama ku qaadayo tallaabooyin hor leh oo horseedaya guul iyo horumar. Arrinta labaad ee jidka isbedelka lagu heli karo waxa weeyaan saameynta ama influence. Saameyntu waxa weeyaan waxyaabaha hadii jeer qofka ku hareeraysan noloshiisa ilaa markuu yaraa ilaa markuu weynaaday ee la saaxiibo ehel macallimiin dadka uu hadii jeer daawado ama uu taageero waxyaabaha internet qofku isticmaalayo TV-ga programyada iyo barnaamijyada uu daawado waxa soo dhan hadii jeer waxa ugu badan ee nolosha hadii jeer la qaatay saasoo kale waxay qayb ka noqon karaan isbedelka taban ama togan ee uu sameyn karo qofku oo saameyntu runtii waa mid aad uga sababteedu uga xoog badan tahay inuu qofku isbedelo marka loo eego tii dhiirigelinta waana ta ugu badan ama siyaabaha ugu badan ee dadku isku bedelaan waayo hadii jeer waxaanaad ku foogan tahay noloshaada ugu badan la qaata 10 sano ama 12 sano kadib wax ma sarkaysaa adoo si dadban ay ku saameeyeen oo wixii dadkaas ama ciidaas ama wixii aad daawan jirtay ay rumaysan wixii ay ku qanacsan wixii ay diidi jireen diidaya wixii ay yeeli jireen adoo sidii u dhaqmiya sarkaysaa adoo ogeyn ma garan kartid dabeecadan iyo waxaanaad jeceshay waxaanaad nacabta meesha ka soo raaceen. tusaale ahaan islaamkuna markii uu fidayay laba sibu ku fiday ilaa maanta mid ka mid waxay dacwo toos ah oo diinta loo sheegay dadka cilmi ahaan midna waxa dadka islaamka marka ay ganacsi iyo arrimo caafimaad iyo safar u tagaan wadamo laga yaabaa in qof islaami qof muslim aanu ka joogin in dadkaasi cajab geliso qofka muslimka ama dadka yara kooban muslimiinta u yimid sida aaminka u yihiin sida runta u sheegayaan sida ay waqtiga u ilaalinayaan sida ay akhlaaqdooda wanaagsan tahay sida ay u cibaadeysanayaan dabeetana ay wax iska weydiiyaan ay yiraahdaan diintan aad haysataan maxay tahay sidaas oo kale ay muhiim tahay hadii jeer marka ay imanayno wadamadan siyaabaha kala duwan ku nimaadno wadamada muslimiinta ahayn in goobaha shaqada hadii jeer markay joogno aynu ogaano in aynan kaliya ahayn dad shaqaysanaya laakiin aynu ogaano fariin kale aynan wadno oo hadii cilmi aynan haynin badan oo ku gudbino diintaas iyo dacwada in dhaqankeena aan ku gudbin karno inaan yaraysan. sidoo kale waxa muhiim ah qofku hadii jeer inuu ka fikiro ogaado ilmihiisa iyo ubadkiisa markuu tarbiyadeynayo runtii waxaan ugu sheegayay waxaan u leeyahay samee waxa ugu muhiimsan hadii jeer waxa ilmuhu ka arkayo marka isku ka biiraan wuxuu ilmuhu ka arkayo iyo wuxuu ka maqlaayo iyo waxaad ku leedahay marka isku isbiirsadaan dhiirigelinta afka ugu sheegayso markaas wuxuu taraysaa laakiin adiguna hadaad wax gaar ah sameeyso adigu hadaan salaada ku fiicnaan adigu hadaad balwad leedahay ilmaha inaad hadii jeer wax kale la rabto way iskhilaafaysaa marka saameyntu hadii jeer way ka power weyntii waana ka sabab xoogan tahay dhiirigelinta. Arrinta saddexaad waxa weeyaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka waxa weeyaan waxa laga yaabaa qof ilaa yaraantiisa inuu mashaakil iyo caqabado la kulmi jireen la soo kulmeen caqabadaha waxa ka mid noqon kara
waxaa ka mid noqon kuwa dhaqaale, waxaa ka mid noqon qof isagoo yar waalidkiisii waayay ama dad kaloo jeclaa aad u waayay dabeetana nolol adag oo duruufaa kusoo koray, qof laxaadkiisii waayay, qof dhaqaale badan khasaaray, qof caafimaad darro la kulmay amba xanuuno la soo darseen, caqabado saasoo kale oo midba heertay midba xaaladtayba dadku la kulmaan. caqabadahaas haddaba sidee bay sabab u noqon karaan qof inuu isbedelo? isbedelka labada siba way sababaan, isbedelka taban iyo ka togan. oo sidee u sababaan? waxaa laga yaabaa qof inuu ku sabro, qofna inaanu ku sabrin. qofka aan ku sabrin waxaa dhici karta markaa natiijada sabar la-aanta ka imanaysaa inuu qofkaas yidhaahdo waxaan maxaa aniga igu dhacaysaa, dhibkani muxuu igu dhacayo keli igu yahay, dabeetana wixii keli u maleeyo, kadibna uu markaa gafo, dabeetana macasi ku dhaco, kadibna uu farxad ka raadiyo markaa dariiq qaldan, sida dadka balwada barta ama dadka xun raaca had iyo jeer markaa caqabada ku dhacaan. qof wadan kasta meel xun ku jira, marka tira maxaa meeshan ku keenay, wuxuu ku leeyahay beri baan waxaan waayay labadayda waalid amba dhaqaalahan waayay amba sidan ay ugu dhacay, dabeetana noloshii waan ayaa sida iga noqotay. qof ku sabri waaya xaaladii uu la kulmay, kadibna markaa farxadii iyo xasiloonidii ka raadiyay markaa dariiq xun. halkuu mid kale laga yaabo intuu ku sabro caqabadaas la kulantay ee dabiiciga ama uu kusoo barbaaray amaba markaa la qabsatay xanuunkeeda, intuu ku sabro dabeetana laba ajar uu ku hela. mid waa midka aakhiro oo runtii aynan qiyaasi karin, midna waxa weeyaan mid adduunyada oo ah qofkani inuu ka faa'iidaysan og yahay fursadaha nolosha soo maraya. waayo qofka hadii jeeraan caqabadahan la kulmin wuxuu ku jiraa mandaqad loo yaqaano mandaqatul amaan amba xayndaabka xasiloonida. xayndaabka xasiloonida waxa weeyaan qofku inuu xanuun dareemayo markuu shiraado ka bax, markuu shiraado guusha raadi amba uu shiraado dad arrimo kaasoo galaan oo guusha kaaga xidhantay ka raadi, inuu ka baqayo in rejection la siiyo ama qofkaasi diido, inuu qofkaasi selfish noqdo, inuu qofkani guusha xanuunka leedahay daalkeeda rafaadkeeda ka baqo, dabeetana markuu isku dayaba xanuun dareemo uu kusoo noqdo mandaqada xasiloonida. laakiin qofkan xanuunka awalba tirsanayay isaga awalba xanuun kuma yaraan, markuu fursad yar iyo gacan qabad yar la kulmo waa u sahlantay inuu mandaqada ka baxo, dabeetana uu guusha heer ka gaadho. marka qofku haddii uu ku sabro xanuunka iyo caqabadaha nolosha waaweyn uu kala kulmo, waxa u dheer hadduu hadaf leeyahay inuu hadafkiisa xaqiijin karo. waayo fursadaha iyo gacan qabadka uu la kulmayo taageerada kulmo si fudud buu uga faa'iidaysan og yahay. xanuunada iyo daalka iyo rafaadka uu kala kulmayana wax xanuuna kuma haynayaan, waayo marka hore wuxuu tirsanaya inaanu xanuun ku yarayn. marka guusha aad bay ugu dhowdahay qofkaas. marka saddexdaa arrimood waxay sababi karaa qofku inuu isbedelo oo nolosha heer ka gaadho guulaysto. waa ta koobaad oo dhiirigelinta oo runtii qofka xamaasad gelinaysa cimrigeeduna aad u kooban yahay, iyo ta labaad waa saameynta had iyo jeer qofku inuu u fiirsado iska eego waxa ku hareeraysan oo waqtigiisa inta ugu badan la qaato saaxiibada iyo dadka uu taageero oo had iyo jeer uu jecel yahay ama uu ku xidhan yahay. iyo arrinta u dambayso ah haddii caqabad ama dhibaato nolosha kala kulanto inuu qofku ku sabro. haddii uu ku sabro qofkaasi oo markaa hadaf leeyahay, hadafkiisa uu xaqiijin og iyo guul buu ka gaadho ogay, sababtoo ah mandaqada ammaanka ama xayndaabka xasiloonida marka uu ka baxo xanuunka uu dareemaya wax dhiba kuma haynayo, waayo awalba xanuun kuma yareen. aad baa mahadsantiin. inta muuqaal xiga iskugu imanayno waa aniga Ibraahim waa barowida leh. asalaamu calaykum.